waan dhowahay runtii sagal aad baa sugaal aad baa u dhowahay doorashadii horta saad idinkaba aad u jeedeen waddanku muuqaal ahaan cudurka aad buu u saameeyey Maraykanka dhimasho aad u tiro badan weliba oo wax loola yaabo ah oo markaad aragtid dhimashada sida dadka ay u dhimanayaan ama cudurka u saameeyey haddana saas ay tahay doorashadu way qabsoontay oo xagga waxaa lagu qabtay elektroniga ama boostada anagoo dhan waan soo vodaynay marka runtii saameyn badan ayay yeelatay doorashadaas mid xiisad leh ayay noqotay maadaama madaxweynaha horey u haystay Donald Trump uu ahaa nin aad u adag waddanka waxyaabihii badnaa loo tagi jiray oo dhan uu wax ka bedelay maalan waddanka waxay ahayd waxyaabaha loo tagi jiray ama Maraykanka dadka uu ku soo dhoofin jiray xorriyadda wax la yiraahdo qofka inuu xor noqdo wax la yiraahdo maxay ahayd speechka iyo ninka bini aadanka noloshiisii inuu hor u wato diimaha lama kala saari jirin kalarka lama kala saarayn iyadoo mar badan dhibaato badan ay soo mareen marka madaxweynaha Donald Trump wuxuu dib u soo noqday waxyaabihii Maraykanka 400 ama 200 sano ka soo gudbay marka dhibaato badan buu abuuray dadkii waxay noqdeen inay ma aragtay xoogaar wax soo dhex galaan bulshadii kalsoonidii ay lunto sida dowladaha islaamka oo kale sida Soomaaliya Suudaan uu ka reebay inay soo galaan waddanka waxyaabahaas dhan waxaa koos garay marka in laga buraarugo Soomaaliduna ay buraarugto dadka xisbiga kale ilaa waa laba xisbi Republican iyo Democratic marka dimuqraadiga inuu ka buraarigo waxyaabahan soo socdo si loo difaaci lahaa marka doorashadan way ka kululeed doorashooyinkii horey waddanka uga jiroo dhan dadkii ishay ku hayeen waddanka Maraykanka ama wadamada sideeda reer galbeedka horumarayna waxay ku fiican yihiin fawdo wax la yiraahdo ma jiro nidaam baa ninku ku imaanaya nidaam uu ku bixi karaa laakiin wax fawdo la yiraahdo ma jiraan marka waqtigiisa loola sugay kadib doorashadii la galay doorashadii runtii qaab fiican bay u dhacday maadaama iyaga rabeen inay muddo 4 sano kale inay helaan oo si arimahooda hore ay u sii socodsiiyaan laakiin waddanka waa waddan aad ma aragtay dadkooda khubaro ah ay ka fikiraan wax walbaba intaysan imaan ka hor waayahay mar haddii Soomaaliya ilaa 8 dal oo horey madaxweynaha hadda kursiga baneynaya Donald Trump uu uga joojiyay socdaaladii iyo safaradii iyo in dadkooda oo qaxooti ahaa dib u dejin loo sameeyo madaxweynayaashii hore ay u sameyn jireen uu joojiyay Soomaalida maxay saameeyna oo ay ku lahaayeen inuu kursiga baneeyo saameyn weyn bay ku yeesheen Soomaalidu waliba waa tuu asiga mar walba uu ka qaylin jiray gabadha ay soo gashay aqalka cad la yiraahdo Ilhaan Umar sababtu uu qaylinayo waxay ahayd Soomaalidu waa dad aad iyo aad u fikira mustaqbalka ka fikira si kastaba ha noqoto waxay ogaadeen mustaqbalkan kan ah inuu mugdi sii galayo iskuuladii maamuladii militarigii wuxuu dhan dhib ayaa soo korodhay marka Soomaalidu sideedaba dad waxa weeyaan kacdoon leh wacyigelin leh marka dadkii iska jiifay codka marba ma oga dadka inuu codka wax bedela Maraykanka codka wax lagu bedela aniga wax hal cod baan leeyahay codkayga waxaan awoodaa inaan wax ku bedelo marka codka in wax lagu bedeli karo dadkii lagu buraarijiyo dadkii carabtii meesha deganeyd madowgii naftiisa aan buraarigsaneen in la buraarijiyo Soomaalida waxay ugu hormartay in dadkii ay kiciyaan maxay ahayd ay tusaan codkoodii ay wax ka dhigtaan dad waxaad arkaysaa 50 sano 60 sano aysan codayn codkaba waxba shaqadooda ahayn laakiin Soomaalidu dadku waxay tustay codka
inuu yahay waxyaabaha wax lagu bedeli kara sidaas darteed dad badan baa waxaa soo galay damac badan ninkii hadda madowga dadkoo dhan waa wada madow laakiin madowga labaa loo kala qaadaa maraykanka waxaa la yidhaahdaa black african american iyo black american marka black african american haddii la yidhaahdo waa intii dibadaha ka timid soo galooti ah oo soomaalida kulligooda dad africa ka yimid laakiin marka la leeyahay black american waa dadka aboobayaashooda meesha ku dhashay ayaga american oo maaragtay maadaama mar hore meesha ay tageen laakiin 100 200 3 qarni badan ay meesha ku noolaayeen marka ayaga maraykan ahaana loo aqoonsan yahay dadna maraykanka dad soo galay marka ayaga marka waxay ahaayeen dad iska noloshoodii kale iskaga fikira waxyaabahan aysan ka fikirin laakiin Soomaalidu waxay ku soo kordhisay dadkii in laga fikiro maamulka booliiska wax walba oo maaragtay dawladda ay ku saabsan tahay in qayb laga noqdo dadkii keenay waay Soomaalidu aad iyo aad uga fikireen waayahay maxay tahay marka Soomaalida iyo dalalka kale ee la halmaala ee ayagu Donald Trump inuu si gaar ah u bartilmaameedsaday aaminsanaa rajada ay ka qabaan madaxweynaha la doortay Joe Biden in uu bal isbedel ku sameeyo waxyaabihii horay oo Donald Trump uu istaajiyay runtii Donald Trump wuxuu ka socdaa xisbi la yiraahdo ama groupka wax la yiraahdo Republican nimankan waa Democratic marka waxay ku kala duwan yihiin sidoodaba dadna waa iska cadahay madowga naceebka ku jira waxa kala ku jira waa la ogyahay wadanka waa iska caadi marka ayaga waa dad la ogyahay islaamkana waa tii ay nacab yihiin marka waxay ku kala duwan yihiin dadkan waxay ku campaign gareeyaan in madowgii kor loo soo qaado aan midabta kor la sameyn islaamka maxay ahayd in la ilaaliyo oo wadamada islaamka la soo kor loo dhigo sida ku dastuurkooda ku qoran ilaan dastuurka waxaa ku qoran diimaha ninka diin walba ha haysto in la tixgeliyo diintiisa la ilaaliyo marka dadkan oo Trump ku jiraan ayaga waxay doorbideen in diimihii iyo wixii ay faraha la galaan sida hadda Trump uu sameeyay 7 dawladood oo muslimiin ah intuu beegsaday wuxuu ku candacoonayaa isagu wuxuu leeyahay fawda ka jirta 8 bay ahayn saad sheegtay laakiin Iraq waa laga saaray sababta looga saarayna waxay ahayd Iraq waxay tiri hadii aniga la igu daray dadkaas ciidamada bariga dhexe ayaad ka saaraysaa Iraq markuu garaawsaday wuxuu yiri waa idin ka saaray laakiin dawladaha abood lahayn ay wax ku gargartamaan aan sida Soomaaliya Suudaan sidooday uga habsaday wixii in dadkooda la soo dhoofin dadkii dhoofinta lahayn la kansalo marka madaxweynaha hadda yimid John Biden wuxuu kaga duwan yahay marka madaxweynaha Trump wixii dhan baa la fasaxaya si toos ah waliba wuxuu balan qaaday 3 bilood gudahood in la fasaxo waxyaabahan dhan Trump uu reebay akad ka galiyay sida soo galootiga iyo waxyaabahaas oo dhan waayahay 4 sano ee la soo dhaafay waxa la leeyahay cunsuriyadda iyo midabta koorka ayaa kor u kacay maxaa ayaga iska bedeli doona oo hadda rajo laga qabaa bal in ayadoo waxa weyn in dhacda wadanka gudihiisa ka dhacday dadka madow si gaar ah inta u taabatay dibadbaxyo la isugu soo biiray in ay dalka wada saameeyeen cunsuriyadda iyo midabta koorka maxaa iska bedeli doona runtii wax weyn baa isbedelaya waayo shacabka Mareykanka waxay aaminsan yihiin sidoodaba la aaminsiiyay oo dadka lagu tareen gareeyay oo si fiican loo baray wax la yiraahdo one nation one god one country hal ilaah iyo hal wadan ama nation iyo hal dad in la aamino sidoodaba doolarkay ku qoran tahay waxaan aaminsanahay ilaah marka ilaahan aaminsanahay markay leeyihiin runtii god marka la yiraahdo God waa ereygaas wuxuu tilmaamayaa Allah weyn kaliya maadaama sida diintaba ay qabtay ilaahay yar ay jiraan laakiin marka loo qoraa la yiri God oo W loo capital loo qoro
waa sida waxay la mid tahay ereyga allah oo kale. marka hal ilaah iyo hal dad iyo hal wadan ayaa la aaminsan yahay, dadka saasay aaminsan yihiin. marka maadaama dadka saas mar hore ahayeen, dadka isla markii waxay u dhowdahay inay isbedelaan. raali lagama ahayn, waad aragteen madowgii markii dhibka la gaarsiiyey, dadka dibadbaxyada ugu badan dhigaya cadaankay ahayeen. ma aaminsana waxa asiga watay, qolo yar oo asiga ay ku tirsan yihiin oo horeyna u jireen, weligoodaba ay jireen 50 sano ka hor laga mamnuucay wadanka oo asiga uu fasaxay hataa inay wax dhigtaan. qoladaas weeyaan qoladii ayaa ma aragtay xoogaar garab yar siisay, garabna ma ahan laakiin way rabaadeen wuxuu asaga jecel yahay. qoladaasna hadda waa tii laga reeyey, laga qaatay. waxaan u malaynayaa dib dambane nin noocan oo kale inuusan kusoo noqonayn ayaan rajaynaya, waayo waa wadan systemkiisii lagu dhisay waxa la yiraahdo maxay ahayd waxyaabaha la yiraahdo isku duwanaanta, wada shaqaynta, in wadanka la wada leeyahay. waayahay hal ilaaha jira, ilaahiyada kaleeto waxa weye waxay ayagu aaminsan yihiin. waayahay soomaalida waxay ka mid ahaayeen doorashada dhalinyaro waxaa jirtay kuraas doontay gobolada ay ka tartameen, iyo waxaa haatan Ilhaan Cumar oo iyadoo sanadka ku biirtay 4 sano ka hor oo haatan dib ugu soo laabatay. waxa soo kordhiyey ama haatan kuraasta soomaalida yaa ku weheliya, halkeese kasoo kala baxeen, seese xisbiyadu ugu kala jiraan? runtii horta soomaalidu ayadoo xisbigan dimuqraadiga la yiraahdo uu dadka u roon yahay, haddana Donald Trump xisbiga ku jira Soomaali raacsan baa jirta, aaminsan sababo jirta awgeed. sababo waxa weeyaan Donald Trump waxyaabo oo waxaa jirta Soomaalida aad u jecel yihiin in waxyaabahaas la mamnuuco, laga hortago. Soomaalidu ay jecel yihiin ayuu asigana jecel yahay, in yar aan badnayn. sida waxaa ka mid ah waxyaabaha Mareykanka caadi ay ka tahay oo haddii la sheegana Soomaalidu wax weyn ay u aragto dhib ah, sida rag inuu guursado kale. Donald Trump ma jecla, marka wuu ka soo horjeedaa, xisbigiisii way ka soo horjeedaan, ma ogola waxyaabahaas in la sameeyo dadka ka soo horjeeda jinsiga. marka Soomaalida intaas yar ayay aad qaarkooda waxay leeyihiin ay ugu biireen xisbigaas. marka xisbigaas waxyaabahaas oo kale ay xoogaar maaragtay ugu biireen. laakiin xisbiga kan oo dimuqraadiga ah wuxuu jecel yahay wax walba asiga uma kala baxsana. wuxuu leeyahay maanaa wax walba bini aadinka in wuxuu rabo xur looga dhigo ayuu sheegaya. kelimada dimuqraadiga waxay tahay qofka inuu xur u ahaado, wuxuu rabo xuriyadiisa uu u helo. marka xisbigan ma ogolataa sidaas darteed. marka maadaama marka gabadhan Ilhaan kursigan ayada naftirka dimuqraadiga ay la jirtaa, dimuqraadiyiintuna wax sababta Soomaalidu ay u aaminsan yihiin inay wax ay ku jiraan xisbigaas wax kasbay muslimiinta, way aaminsan yihiin dadka muslimiinta ah in xuriyadooda la siiyo, masaajidooda iska dhistaan, dugsiyadoodii la faragelinin. waa taa aragtay Obama markii uu haystay masaajidka weynaa, meeshii weyneed ee daaraha ay ka dumeen, waxaa ku yaala meesha wax la yiraahdo Islamic Center oo masaajid ahaa New York iyo Washington ay ku burbureen. marka waxaa la yiri lama dhisayo, maadaama marka dadka markaa hayay dimuqraadiga ahayeen, Obama hayay, wuxuu yiri sharciga qoraya waa la dhisaya, waana la dhisay. marka waa dad saas ah, noocaas islaamka aan ka hor imaadsanayn, masaajidada in la dhiso, dadka muslimiinta sidooday ugu noolaadaan. wixii dhibaato wata maahana sida hadda dhibka uu iska badan yahay. muslimiintu wax badan baa kasoo dhex dhuuntay, laakiin muslimiinta dhabta cibaadada rabaan inay cibaadeystaan aadaa looga jeceliya, ayagu way jecel yihiin. xagga doorashada aan soo laabanay iyo Soomaalida yaa kuraasta ku soo baxay, imisay leeyihiin Soomaalida tartantay, yaase guuleystay? Soomaalida tartantay kuraastu waa
way kala sareysaa kuraasta waxaa ugu sareeya kursiga hadda Ilham ay ku fadhiso oo aqalka cad oo senatarada ah kuwa kale aqalka hoose oo state-ka ilaa iyo 5 Soomaali ama ka badan ayaa soo galaysa tartanka laakiin waxaa heshay ay ku guuleysteen wiilka aad maqasheen Cumar la yiraahdo Cumar Faatax iyo gabadha kale iyo ilaa iyo 2 gabdho kale ayaa ku guuleysteen oo kuraastaas oo aqalka hoose ah aqalkaas hoosana waxaa ugu fadhiya faa'iidooyin badan waayo waa meesha maamulka ka soo baxay codsigii dhibaatooyinkii lagu hayo iyo waxyaabihii horumarkii ganacsigii waxyaabaha shaqooyinka la abuuro dhan meelaha laga helo waa marka meesha inay galaan waxaa ku qasabtay Soomaalida markay arkeen meeshan inay tahay muhiim waxay isku dayeen inay u tartamaan waayna heleen oo si toos ah si dadkooda wax uga qabtaan Soomaaliduna waa dad firfircoon waa la arkay inay dad wax qabsanayaan ay yihiin maadaama hadda dhalinyaradii duufsi yar uu jiro duufsigaasina keentay dabagal la'aanta waalidka iyo waxyaabo dhacay iyo community-yada dhacay mooyaane Soomaalida waxbarashadu ay ku fiican tahay shaqooyinku ay ku fiican yihiin ilaalinta wadanka amaanadii waxbarashada dadkii ayaga ka horeeyay ayaga ka fiican gaaladu ama dadka cadaanka waxay qabaan diinteennii wax badan bay kaga daydaan waxyaabaha waxaa ka mid ah oo meesha aan ku sii baranay anagoo diinteena aaminsaneyn haddana ayagana baray in dadka loo mahadnaqo tusaale ahaan nabigeena wuxuu yidhi ushkur man waman lam yashkuri الnaasa lam yashkur illah ninkan bini aadanka u shukri u mahad celin ilaahayna inuu u mahad celiyo ma rabo meesha Soomaaliga la dhihi jir marka waad mahadsan tahay adaa mudan meeshaas waajib bay ku tahay ninka hadduu wax yar kuu qabto inaad tiraahdo waad mahadsan tahay haddaadan dhihin waaba dembiyaad gashay waxyaabaha waaweyn oo diintana bartay marka nabigeennii waxyaabaha uu aad u caddeeyay waxay tahay waman lam yashkuri الnaas kelimadaas naas waxay caddaynaysaa ninkan muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo hadduu wax kuu qabto inaad tiraahdo thank you marka diintii saasay raaceen waxyaabaha aad u weyn marka waxaa kala ka mid ah diinta ay qabto wa anzilu naasa manaasilahum dadka dejiya booskood marka iyagana qofka booskiisay dejinayaan waxtarkiisii waxqabadkiisii wuxuu asaga yahay ayaa la siinaya waxyaabahaasay ku dhaqmaan marka Soomaalida inay soo baxdo taas ayaa keentay dad aad u fiican waa mahadsantahay Sheekh Qaasim dalka Mareykanka oo haatan aan nooga sheekeynaysid Soomaalida deganaanshiyaheeda iyo sida ay ugu furantahay inay tartamaan waxaa labeeya dalka Canada oo asagana kuraasta golaha wasiirada iyo Soomaaliya ay kamid tahay kuraasta kala duwan oo wadankaasi doorasho markay dhacaysana lagu arko Soomaali badan inay musharaxiin yihiin oo ay tartamaan maxay dalalka kale ee qurbaha ee Soomaalidu burburku markii uu dhacay ay u qaxeen Mareykanka iyo Canada kaga duwan yihiin oo ay mar kasta murashaxiin uga yihiin oo kuraasta ay uga soo muuqdaan runtii waa su'aal meesha taala horta wadamada kale iyo labadan wadan hadda aad sheegto waxay ay kaga duwan yihiin sharciga adkeentiisa wadamadan Yurubta la yiraahdo sharcigooda ma adka marka sharciga hadduusan adkeen bani aadanka sidiisaba sharciga waa waxyaabaha bani aadanka hogaamiya nidaamka hogaamiya marka maadaama sharciga Canada iyo Mareykanka waa isku sharci waa isku si wadamadan Yurubtana sharcigooda waxa weeyaan waxyaabo badan baa jira marka waxyaabaha soo saaray oo Soomaalida ama labadan wadan Canada oo la isku yiraahdo North America la isku yiraahdo Canada iyo isku jiraan waa wax la yiraahdo North America waxyaabaha marka kaga duwan tahay Yurubta kale waa wadan nidaamkiisa aad u adag yahay marka maadaama nidaamka adag yahay Soomaalidu way la qabsadeen waxay rabeen ayay noqdeen kadib waxay noqdeen dad fiican sharciga qaarkooda si fiican ay uga soo baxeen marka kuraasta in loo tartamo qofka مثلا hadduu jeel galo kuraastaas ma imaan kara ninka hadduu jeel galo oo kale marka Soomaalida
qaarkoodii dad diin lahoo wanaagsan ayaa qaxay ama qaxooto noqday markay meesha tageen wanaagay la kulmeen caruurtooda ku badbaadiyey ku barbaariyeen waxay noqdeen marka caruurtii inay noqdaan dad u tartami kara kursigii ilaan waxaa jirta wax la yiraahdo background check baa jirta ninka in dambiilo noqday marka dadkii wadanka hore ugu noolaa dambigoodii waxay sameeyeen ayaa batay dadkan dad cusub firaash ah dad waaweyn haddana aqoon leh diin leh marka waxay noqotay inay ku soo dhawaadaan kuraasta si fudud ay ku soo galaan dadkii ka horeeyay wadan sharcigiisana adag yahay meesha ay gaareen cid gaari karta ma jirto ilaa qof aad isku ilaaliyay sharciga ilaaliyay waayahay sheekhaas waxaan rabaa inaan ku weydiiyo tan iyo markii Soomaaliya burburka uu ka dhacay ee ay Soomaalidu magangalyo dalalka horumaray u doonteen iyo dalalka kale qaxooti lagu wada noqday Soomaaliya waxaa dib uga hana qaaday hanaan dawladnimo oo qori isu dhiibaha maanta ila meesha la joogo lagu soo gaaray dawladnimada Soomaaliya iyo sawirka aad ka haysataan dib u dhiski dalka iyo xaaladahan dib loogu abuurayo in dadkii dibadaha ku maqnaa dalka dib ay ugu soo laabtaan hanaanka dawligana lagu hirgeliyay haatanna doorashooyin hadba isbedela Soomaaliya ay uga dhacaan maxay yihiin haddii aad tihiin dadka qurbaha ku nool maxay yihiin sawirka Soomaaliya ay ka haysatiin iyo xaaladaha isbedelay ka jira runtii doorashooyinka horta qaabka loo qabto tii hadda doorashooyinka Soomaalidu waxyaabaha meesha hadda lagu bartay waxyaabaha hadda inta ka socdaan aad bay difference weyn baa u dhaxeeya waayo doorasho la yiraahdo doorasho dadban wax la yiraahdo ma jiraan doorashada qof iyo cod ayaa adduunka ka jirta meel kastaba marka maadaama doorashooyinkan dadban dood badan ay xareynayaan mar walbaba markii la qabanayo maadaama la rabay wadanka in laga saaro haddana daruufo jira darteed awgeed in lagu noqday marka doorashooyinkan intay jireen Soomaalidu sideedaba ayagoo si kastana ay yihiin haddana wixii oo 4.5 kan waa xagga ma aaminsana ay waxay aaminsan yihiin sidaan horeyba kuu sheegay in dadka shacabka mid yihiin nin walba codkiisii iskiisa u baxsado waxyaabahan qabaa'ilka la yiraahdo wax lagu qaybsado dhan Soomaalida dibadda horta wixii hadda oday horay ma aragtay oo asigoo 30 jir ah ama 50 jir ah gaaray oo xogar inta kale hadda oo Soomaalida dhabta ah waxyaabahan dhan ma aaminsana sidaas darteed waxay leeyihiin doorashadan dadban maxay tahay waxba uma arkaan marka doorashooyinka wadanka soo maray oo dhan ayaga waxay leeyihiin waxaan maxay yihiin qaabkee loola say noqonayaan haddii la yiraahdo qabiil waaye way sii baqayaan qabiilka muxuu yahay waayo waxaa la baray magaaladay ku dhasheen inay ay ku abtirsadaan hadduu yahay ninkan reer California wuxuu leeyahay I'm from California I'm from Arizona I'm from Portland Oregon I'm from Seattle Washington wax dhaafaya male marka sida aqligaasna waa jiray Soomaaliya waxaan maqli jiray yaa tahay reer xamar meel dhaafe ma jirto yaa tahay reer baraabe marka waxyaabahaas ay ku dhaqmaan ayaga marka saas oo kale haystaan marka bas magaaladaas iyo dadkaas hanaanka isbedel iyo qaabka haatan meesha lagu socdo iyo halkii laga soo bilaabay bal wax nooga sheeg iyo sida ula socoteen Soomaaliya xaaladeeda horta Soomaaliya aad iyo aad aan la soconay meelba aan marayno waayo nin kasta wadankii hooyo uu ka soo tagay marba ma ilaabayo dhibaatooyin badan buu kala kulmaya dibadda oo yaab badan oo waxyaabo asiga uusan aqoon bay'ada waxaa la yiraahdaa 3 marxaladood buu maraa ninka markuu dhoofo marxaladda koowaad waxaa la yiraahdaa shahrul asal baa la yiraahdaa shahrul asal macnaheedu waxa waaye ninkan guri diyaar ah la siinayaa cunto diyaar ah la siinayaa iskuul diyaar ah wax walba shahrul asal baa la yiraahdaa ninka systemka ma oga waxba ma oga wuxuu isleeyahay waa waxaan maxay yihiin kadib waxaa u bilaabanaya 3 bilood kadib ama 5 bilood ama sanad kadib shahrul asalkaas shahrul asal waa afka carabiga macnaha bilo oo aad u wanaagsan ninka cuntadu helaya kaash buu helaya food stamp wax la yiraahdo helaya مثلا
$1,000 oo food stamp ah, $1,000 oo kaash ah, gurigii oo laga bixinayo. marka ninkan wuxuu leeyahay nolol asaasi ah. nolol aad iyo aad marka bilahaas wuxuu isleeyahay wallaahi wax kaa maqnaa waa waxaa soo daba saaran wax la yiraahdo marxalad la yiraahdo bay'ada. waxaa la leeyahay markaan shaqaad aadaysaa waa la tababaray, shaqaad aad waa shaqaysanaysaa, fuudkiyaa laga jarayaa, lacagtiyaa la jaraya, suu u shaqaysto shaqo toos ah la siinaya. star job baa la yihahdaa, nooc walba noqo waad helaysaa shaqadaadii, lacagtu waa isku mid. wadanka waxaa u go-an saacadii, maalan hadda waxaa laga shaqeeyaa saacadii $16. marka saacadii $16 shaqaysaa lagu leeyahay 8 saacadood full time part time. marka bilahaasa dhibaato imaanaysa marka ninkiioo shaqooyinka aad u adag marka xoogaa dhib baa imaanaya. Soomaaliya aan usoo laabana marka aad iyo aad marka Soomaaliya marka runtii dowladihii bilowga ahaa markii burburka dhacay kadib lasoo dhisay habsami socodkoodii kulli iyadoo loola socday marba rajay soo galaysa Soomaalida wadankii inay ku soo laabtaan. runtii Soomaalidu wadanka haday ku soo laabtaan waxaan hubaa wax weyn inay qaban karaan, wax isbedel weyn inay sameynayaan. laakiin ayagu waxaa la baray aamin wax walba inay safety wax la yiraahdo waxay tixgeliyaan. hadda Soomaalida sidii hore ma safety-gay jeceliin, safety-ga in meel walba aamin ay noqoto, dil iyo waxyaabahan dhacayo dhan ma ogola. bay'adii ayaa bedeshay marka qofaa la dilay iyo wax baa saa noqday markay maqlaanne kuma faraxsana ama ma aaminayaan inay si degdeg meeshaas ku tagaan. wadankan wuu uga digaya, wuxuu leeyahay maalan dowladda waxay leedahay meelahaas ma tegi kartaan. marka si kastaba Soomaalidu waa dad dadkooda nool mar kasta ah. rajooyin badan baa soo gashay wadankii inay ay wax u qabtaan, waliba jaaliyadaha sida hadda jaaliyadda Koonfur Galbeed North America sida wadanka uu yahay shanta jaaliyadoodna way jiraan. Puntland maamul goboleedyada iskaashi ay leeyihiin wax la yiraahdo jaaliyadaha midowga jaaliyadaha way ka fikiraan mar walba in wadanka ay ku soo noqdaan oo kaalintooda ka qaataan. marka runtii sida hadda gadoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed North America mudane Marwo Xaawo Jimcaale Aadan iyo xogahayaheedii guud jaaliyadda Koonfur Galbeed North America mudane Maxamed Amiin fikradahay hadda soo wataan oo kale fikradu waxaa jirta inay hataa ay maalgeliyaan xafiisyada dowladda, security inay wax ka qabtaan, isbitaalada inay wax u soo qabtaan ilaan isbitaalada dhibaatooyinka ka jira. marka COVID-19 kan ayaa reebay maana barnaamij oo aad u weyn oo waliba gobolada Soomaaliya oo dhan maadaama jaaliyaduhu ay midoobeen gobol kastaba inay wax u qabtaan oo ay ka caawiyaan xagga security-ka, xagga bulshada, isbitaalada, waxyaabahaas ayaa la dejiyay. iskaashi aad u weyn. marka runtii ilgaaraad Soomaaliya ku haysaa ilgaar aad u weyn waliba iyo isbedeladeeda aad iyo aad u mahadsan tahay Sheekh Qaasim Sheekh Saalax oo xubinka